ninka shan la yiraahdo wuxuu ahaa nin dheerada ninaadu caqli badan oo carab ka dhex tilmaaman buu ahaa wuu guursan waayo wuxuu waxaan guursanayaa inanta aniga ii ekaata xagga caqliga inan aniga caqligayga oo kale ilaahay siiyay taa baan guursanay inan doqon ah lagama yaabo buu yiri inaan guursado ama inan basari ah lagama yaabo inaan guursado buu yiri halka markuu ninkani maray guurkiiba uu guursan waayo nin weyn buu noqday tuulo fog ayuu u sahan tagay isagoo inan doonayo inuu soo sahamiyo bal tuulada wax inan oo caqli badan inay ku nooshahay ayaan soo ogaanaya waa safar dheer baa loo galay habeen loo dhaxayo markuu safarkii sidaa u bilaabay oo mu nin kale tuuladii ku socdo bay wadadii ku kulmeen xageed ku socotaayo waa isla magaaladiiba ay ku socdeen in yar markay socdeen labada niniba daa awr bay fuushan yihiin ayuu shanigani hadlayo ninkii buu la hadlay wuxuu wariyahay buu yiri safarku waa dheer yahay ama iqaad ama aan ku qaado markaasuu ninkii la hadlay shanigan wuxuu yiri warmaad waalan tahay adna awr baad fuushan tahay adna awr baan fuushanahe sidee baa la isku qaadi karnaa laba nin oo awr fuushanaysa isku qaadi karaan buu yiri shani ma hadal uu iska aamusayo uu socday cabaar bay socdeen tuulada markay ku dhow yihiin bay beer arkeen la goynayo si fiican u bislaatay bay arkeen shanigana la hadlay wuxuu ku yiri aniga beerta ma la cunay way baxdayeen miyaa la cunay mise talo weli lama cunin tanaaba ka daran buu yiri taadii hore waad aragtaa inay ku taalo hadda la jaraye waxa la cunay de waa wax inta la cunay saxaro noqdee sideedii leedahay ma la cunay soo digan indhaha ku hayo buu yiri maxaa ka khaldaniyo shani wuu iska aamusay uma jawaabin tuulada markay magaalada ku socdeen sida darafkeegii marayaan ayaa janaasad la sido oo tunka lagu sido la soo aasayo ayaa ku soo baxday shanigana hadlayo wuxuu yiri aniga meydkaasi talo ma nool yahay mise uu dhintay meydka la sii aasay xabaasha lagu wadaa miyuu nool yahay buu mise uu dhintay markaasuu dib kula hadli maayo wax caqli leen ku moodayay deeyle waxaan caqli lahayn baata waabad arkaysaa inuu janaasayo tuurta iyo tunka lagu sido seedii leedahay ma nool yahay ma muu dhintay seed oranaysaa buu yiri uu qabsaday uu iska aamusay halka markay magaaladii galeen buu yiri de hadaba maca salaama buu shanigana yiri maca salaama anna magaalada meelahaas ka gali adna waa isaga reer baa u deganaa xaafadiisii baa degan ninkii baa ku dhagay wuxuu nacasabad iska ahaatide aan caqli lahayn sharafta carabtu sharafta ilahayd baa ii diidaysa iyo karaamadii carab lagu yaqaanay adigoo reerkayga yimidina suuqa kugu sii daayo ana xaq adigu leedahay intii martigeliyada ahayd iraac buu yiri gurigiisii bay isku raaceen gurigii markay tageen inan baa albaabka ka furtay ninkan dhalay oo aad u caqli badan markii albaabkii ka furtay qurux ahaan way u cajabisay laakiin caqli ahaan ayuuna wali ogeyn inantu inta ay la egtahay ama ma miisaamin waxa dhacay markii cabaar ninkii loo goglay qol u fadhiistay ayay odaygii wareysatay oo ninkan iyuu ahaa nin waalan oo wadada iska soo raacnay waa nin waalan caqli uu leeyahay laguma oga ninkan saddexda hadal uu igula hadlay waan la yaabay buu maxaad ku garatay inuu waalan yahay bay tiri wixii guud aanu awr fuushan isna uu awr fuushan yahay wadadu way dheertay ama iqaada ma aan ku qaada ninka igu yiri balka warburmuno waalayn haddana beer baan ku soo baxno ma la cunay mise wali talo lama cunin nin kale balka beertiina uu arkaa meyd la sidoo arko talo muu nool yahay haddana mise uu dhintay buu ku leeyahay waana arkaa inuu la sidoo xawaasha lagu aasayo inantii baa ku tiri ninkan ma waale waa nin caqli badan markuu ku leeyahay may qaadi mise waan ku qaadaa wuxuu u jeeday sheekadu jidkay gaabisaaye sheeka iyo bilow sheeka wanaagsan iyo bilow aan wadada ku socodka ku ilowno ama anigu aan sheeka ku bilaabo saas u jeeday bay ku tiri waan fahmay buu markuu ku leeyahay beerta ma la cunay mise wali lama cunin miyaa la iibsaday buu u jeeday bay ku tiri lacagteedii baa la cunay oo waa la kala iibsaday mise wali beeran la iibsanin buu u jeeday bay ku tiri markan uu ku leeyahay meydkani muu nool yahay mise wuu dhintay ubad ma ka tagay buu u jeeday bay ku tiri ubad ma ka tagay magaciisa uu ku sii waaro mise uu gablamayo bilaa ubad buu dhintay saas uu jeeday bay tiri hadda fahmay buu ninkii ku soo noqday warniyow sheekadii maanta aad weydiisay hadda aan kuu sheego buu waxaad uga jeeday ninkii uu soo fadhiistay oo uu yaabay oo war cusub way ku noqotay hayay sheeg buu sidaas uu ku sharxay wuxuu ku yiri warkan adu maadan keenin ayaa keenay markaas inaan dhalay oo uga sheekeeyay baa sidan igu soo sheegtay ayuu ku yiri inanta dabqa la oran jiray inantii buu uga fadhiistay wuxuu yiri inan doon baan ahaaye inantaasi way qancisay iyada lafteeda
sidii buu ku guursaday markuu reerkooda ku soo noqonay awr buu saaray xagga dambe ayuu awrka soo saaray markii dadkii ay arkeen shan niyo soo socda dabqana ay xagga dambe u saaran tahay ayay yiraahdeen waafaqa shanun dabqa alla ilaahay waa shan wuxuu helay inan isaga u dhiganta xagga aqliga maahmahdani waxay ku timaadaa Soomaalidu ma oran jirin wiilis waalaba waabiya hela waa waabiyihiyo marka doonayso wax adiga ku qanciya ama adiga aad ku qanacdo ayaa qofka loogu maahmaaha waafaqa shanun dabqa